mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa munaasabad ay ugu talagaleen Ciidul Fidriga waxa ay ku qabteen magaalada Muqdisho iyadoo munaasabada uu ka qayb galay Suldaan Fiqi Sayid oo ah suldaanka guud ee beesha Tuni waa kuwana nabadoonnada iyo waxgaradkii waliba siyaasiyiinta beesha Tuni oo ka hadlay munaasabadaasi yani waxaan u maleynaa maanta ciida wixii lagu duceystana waa la helaa anaga madoowaadkana Ilaahay naga saaro midnimada عدالة وحدن إلهي نوصقه وعن كسو جبينا إن شاء الله يعني عيدان عيدي سكله إنه هذا نسيده وكلنا لقيت خاص ولكن أنت ماهن تجمد براوة إن شاء الله سواء قربان أصغر سنة أنا متقنا لو وقع القربان إسا كما إسا يسمى ضدك النجا يضلك النجا أو قبلنا بس أنت سوكلية ويبدأ أنت سيتوه وكوسو دويننا وكجعل الله وأنا جعل شيء قلبي على نوفرتي كان أركتي وما إلى ذلك ديارنا شغلنا هنا كل شغينا كل مرة كل ساعة كل حين وفي كل مكان إن شاء الله تعالى. سلطان كباشا توني سلطان فقي سيد واسنا مدشا كهلي أي وحوة المامية. متقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وحنال كان رنتي سنية سميله oday dhaqameedyadeenii qaaliga ahaa nabadoonnada samadoonnada culamaa u diinka dhallinyarada hooyooyinkeen hablaheen iyo walaalaheen oo iyagu noocyo badan isugu jira ah inay maanta runtii anoo dareensan og ilaahay waajibaadkana saaray mid ka mid ah oo ilaahay nagu adoonsaday bishii barakaysneed ee shahru ramadaan inaan meel walba aan joogno dadkeena muslimiinta aan isla qaadanay qof walba ilaahay haleeshiyey waajibaadkiisii gutay acmaashiisu banayd ee salaad leh ee soonkii leh ee tahajjudkii iyo quraan akhriskii leh ee sadaqooyinkii iyo maaragtay xiriirintii ahalka leh inta baan isla soo qaadanay waad la socotaan inaan soo afjarnay ilaahay iraadadiisana ay ku ahaatay markaan 29 maalmood aan soonnay maalintii dhaweed ee jimcaha inay noo ahayd ciidayn 2 maalmood oo 2 ciid ah oo ummadda islaamka meel walba ay joogaan bishaaro ka dhacday ayadoo ilaahay loo takbiirsanaya qof walba meesha uu joogo uu leeyahay الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد وكلمة أدوين قفوا البحلك وجوه المسلمين تبشارة مركي دعلي أيضا مركا هدنا الاسفر أيوه إلهي إرادة ديسة جريتان كيسة إلى ألوهية ديسة الربوبية ديسة النقوع دون سدي haddii ay dhamaatay bishii barakaysneed ee shahru ramadaan inaysan dhamaanin ilaahay in loo taagnaado adoonnimadaas aan qiranay nabiga sallallahu alayhi wa sallam uu inoo jideeyay asagii waxyaa magacyada ugu wanaagsaneed loogu yeeray uu ku yahay Abdullah inaan annaguna markaa Abdullahnimada aan qaadano adeecno wixii khayraad ah nooc walba oo bishii barakaysneed ee ramadaan nooga tagtay inaan la nimaadno salaadaha inaan la dayacin inaan xajka iyo diyaar garowgiisa la dayacin in salatu rahimka inaan la dayacin in wixii khayraad ah ilaahay ballan qaaday islaamnimadaadana taam ku noqonayso qof walba inuu la yimaado bishaas ilaahay maaragtay inna ka hor buu oofsaday qaarna bishii barakaysneed gudaheeda annagoo ku jirnay buu oofsaday ilaahay inta ka horeysaba ilaahay waxaan uga baryaynaa jannadii firdawsa inuu geeyo dadkeenaan ilaahay u suurtageliyay ee dhamaystay hadda maalmaha farxadda leh oo maanta maalinta saddexaad ay tahay waxaan aad ugu faraxsanahay dhammaantiin inaad maanta noo timaadaan idinkoo leh waxaan idinla qaybsanaynaa tahniyadii ciida ciidul fidriga oo aan isu nimaadno oo aan ismarxabayno oo aan runtii qofkii maaragtay isfarno macruufka isbarno wixii maaragtay xumaatadan aan iska reebno intaas lama heli karo ilaahay iraadadiis un bay ku noqonaysaa dadkiina halkaan noo yimid oo niyad samida noogu yimid
hortiina ayaan ka leeyahay iyo hor ilaahay waan idin soo dhaweynayaa waan idinkala qayb qaadanayaa waana idinka guddoomay niyad samidaas ciid mubaarak ayaanu idin leenahay haddii aan intaa uga gudbo kelimad yar oo ciidulfitriga ah wixii ka dambeeya oo ragga walaalahay nabadoonnadii halkan ka hadlay ay xuseen waa waxaan ugu talagalnay waxaa la yidhaahdaa likulli maqaamin lahu maqaal maqaam kasta maqaal buu leeyahay raalli ahaada arrintaasi marka waxaan ka wadaa haddii ay tahay maanta ciidulfitriga inaan isu nimaadno oo intaa tahniyaddaan isdhaafsanno qaybta nooga quman marka ugu horraysa guud ahaan waxaan leeyahay ummadda islaamka meel walbo ay joogaan in arrintan farxaddeedii aan la qaybsanno in dadka kale ilaahay u saamixin asagiiba isku jaangooyey ilaahay ummadaha kii ilaahay barakeeyey mas-uulka weyn oo heer madaxweyne ugu weeyahay mas-uuliyiinta kale ee magacyada badan ee wasiirada leh ee xildhibaanada leh ragga kale ee boqorrada ah meelaha jooga in walba waa la faray waa waxa qofka mar walba la leeyahay haddii ay maalin noocaas qallo kugu timaado masaakiin baad quudinaysaa waa waxa loo tilmaamayo xigmadda diintu ay ku aroortay dadkiina farxaddiina dadkiina jeeb kale ama wax ugu jira keliya maahee ha laga faraxsiiyo masaakiinta oo fitriga ilaahay maartay la bixinayo waxyaabaha ku arooray waa dadka oo dhan inay wada faraxsan yihiin waxaanu qiraynaa oo aan u soconnaa oo meel walbana aan ka sheegaynaa markii aan la qaybsannay ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel walbo ay joogto ay ku ciideen aan leenahay ciid mubaarak wa kullu caamin wa antum bikhayr waxaa intaa ii dheer oo aan raacinayaa dadka magaca sidayda oo kale isimada soomaaliyeed inaan idhaahdo in ducooyinka noocan laga wada qayb qaato meel walba oo joogo isim waxba kuma xumaadaan in loo istaago dadkeennan ummadda soomaaliyeed meel walbo ay joogto isu keenistooda midayntooda kulmintooda isa saamaxaadooda iyo in la tilmaamo talo walba oo ku quman oo aan rajaynayno mustaqbalka ilaahay inuu waddankii barwaaqada waddankii boqortooyada ilaahay inuu ka dhigo waxaan aad u tilmaamayaa mas-uuliyiinta uu madaxweynuhu uga horreeyo annagoo og oo daraad aan kala qayb qaadanay masaajidka isbahaysiga islaamka kelimaadka uu ku lahaana caalamka laga fiirsaday haddana annagu waa inaan noqonno waxyaabaha la tilmaamayo oo mas-uuliyiintu ay tilmaamayaan naftoodu inay ka bilaabaan dadka kale raacyadana inay arrintaa la yimaadaan hal la midooboba aad loogu celceliyaa niyadda hallisu furabaa lagu celiyaa ummadda intaa waxa weeye siduu ilaahayba tilmaamay oo mar walba aan ku celcelinno in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim ilaahay qooma dooriyo ilaa jeer ay naftoodii dooriyaan ma haddii aan markii hore khalad galnay oo aan doorinay qaabkaan barwaaqada ku helnay soomaaligii magaca adduunka ku lahaa haddii la waayey hadda waxa weeye qaabkaan waxaad malaysaa inaan dooranay annagu marka garasho culamaa udiino waa inaad noo tilmaantaa isim iyo oday dhaqameedu waa inaad ilaahay hortii kula xisaabtantaa oo aad tidhaahdaa arrintan waa inagu filan tahay halkii ugu dambaysay oo qof bashara oo caqiide leh oo alli iyo nebi leh inay intan ku ahaato mar walba dhibka inagu dhaco marka ma rajaynayno waxaan ku talagalnay marka ramadaanka laga baxo arrinta haddana aan idiin ballanqaadayo oo aan halka hoose aan ka soo bilaabi doono ilaa iyo heer qaran aan gaarsiin doono midnimada ummadda soomaaliyeed magaalo xeebeeddaas quruxda badan aad ku abtirsataan baraawe yaan qofna marti looga noqonin midda kale waa inaan qiimaynaa dadka qofka bani aadamka soomaalidu waxa ka khaldamay ee burburka ku keenay inay jiri karaan khaldaad waan arki karnaa oo waa muuqataa in rag badan soo qaxay halkan oo xerooyinka buuxaan waan aragnaa in dad badan maaragtay dhallinyaro badan cadaalad iyagoon helin inay xiran yihiin waan aragnaa ma odhan karnaa dad si gaara soomaali uga tilmaamanoo sumad ama shaambad gaara lagu dhejiyey reerkaas bay u gaar yihiin waa maya hallaylehe maya rag badan baa la xidhan aniga iyo idinka culimaaudiinka iyo culimaaudiinka guud ee isimada soomaaliyeed
iyo mas'uuliyiinta sare ilaahay hortii soo ballan qaaday bay inoo taallaa arrintaas sida looga dhabayn lahaa cadaaladdu siday ku soo noqon lahayd miskiinka iyo dadkan kale oo maaragtay runtii maanta waxba haysan sida shaqooyin loogu diyaarin lahaa arrimahaasi oo dhan waxaan ku talagalnay kulamo intan ka waaweyn kulamo intan ka qurux badan kulamo jaaliyadaha iyo isimada Soomaaliyeed oo dhan aan ku xasuumi doono waxaan naga khaldamay gaar ahaan iyo guud ahaan baan uga hadli doono arrintaana ilaahay haddaan maya meydka cafiya la dhihin waanu gaarsiin doonaa ilaa annagu aan ka aragno Soomaaliya hadda waan ku mar walba waxaanu niraahnaa meel alla meeshaan isugu nimaadno Soomaaliya toos isku tiirsada hadba kiina taagdaran taageera weligiin ilaa aan arrintaa ficil u bedelo waxba toosimayno haddaan idin leeyahay marka waxaan idin leeyahay ilaahay inuu naga aqbalo soonkeena salaadeena acmaasha khaaliska ilaahay dartii aan u sameynay ilaahay intii aan soo gudanay ilaahu waxaan leenahay naga aqbalo ha nagu soo celin inta kale haddaan u caafimaad qabno aan diyaarka u nahay inaan gudanno ilaahu noo fududay oo ay naga aqbal waxaan leenahay ciideena ilaahu naga aqbal waxaan isu diyaarinaynaa qof walba ninkii niyeysa berri inuu xajkii aado ilaahu u fududay waxaan idin leeyahay naftayda iyo naftiinaba aan la dardaarmayaa arrintu inta badan kuma timaado raggiina ku seexday inuu madaxweyne wax u qabto wasiir inuu wax u qabto xildhibaan wax u qabto kuma imaanayso nin walba waxa way mas'uuliyadiisa gaarka waa inuu qaataa كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته دمان قوساراتهن وحديث نبي وصحيحة إن ما أردت دمانتين غفل بوحبال الراعيي غفل بوحي الراعيي إنه كصوبحه ييسا نقول إن حنون نذا محايا مركا كل مدى نسوني ما نكليه إنا إنسو شيئنه مركا إنت هدى عن حسي وأرنا أن أقول تلقى المناسبات دي معلن تيدا شرر بان لقادان دونا قبل الذي بان تيجي دونا إلهي وحن كبريا أنا قردن in haddaan halkan ku ciidnana waa caasimadeena Soomaaliyeed haddaan baraawi baydhabo iyo maartay Kismaayo aan ku ciidnana waa dhulalkeena caasimadaheena waartay ama magaalooyinkeena Soomaaliyeed oo aan xaq u leenahay cid maartay looga dambeeyo arrintaas la leeyahay ama marti looga yahay ma jiraan sidaa darteed waan rajaynaynaa inta dhiman ilaahay inuu khayr iyo barako noogu dhameeyo kulankeenana ilaahay kulan khayr qaba nooga dhigo dhammaanteen waanu ducaysanaynaa كأن إننا مقنا وحلنا فرحدا وإذن كلا قيب قاعدني ذكيني دبلها يملها كنول إذن كنا وحوي ماشين إذن كيوبت كنا الله إذن كمارت إذن كبد بادي الله إله إذن كحفظه أنا قردنا هل كان دباتوين كانوا مدكوها بصدى النوع والبله إله كد القاد إله عدالة الدولة إله مارتي أن كجرب استاجنو إله مارتي سماه هذا الدولة من هذا المنطقة هذا أن جارسينه wixii soo socday dhismooyinkan dawliga ah maaragtay maamuladan oo inta bal leeyahay Soomaali un baa xalkeedii lagu raadinayaana ilaahay inuu maartay taa laftirkeed nagu garab galo annaguna ikhlaasnimo iyo daacadnimo aan la nimaadno wadaniyad aan la nimaadno waanu ku guuleysanaynaa sidaa darteed insha Allah taala kulankiina iyo imaatinkiina mar labaad mar saddexaad waa soo dhaweynaya waxaan idin leeyahay كل عام وأنتم بخير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجمعنا جمعا مرحوم وتفرقنا من بعده تفرق سيدة سلطانك نبدونا دا سمدونا دا أغنيهانا دا حوينك وارباهنتا وحان إذنكو سلامة يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد سلام سيدا أن أغنهي إن سلطانك مدو بل إيو نورمال نولو جوغو وانا أن كميت أهين رجي كسور دوبي دلكا سونا دجيي هويغان وردير وحد انت فديو إيوهي مقان واي آدان ومحسنين وجيت كشركة مانتا haddii aan ma aragtiyo idin sheego oo idinkana ma aragtiyo qaybtaas aad ka qaadataan oo kaalinta aad ku leediin sida nibadoonada iyo dhalinyarada iyo aqoon-yahanada iyo haweenka waa Eidul Fitri in suldaanka aan ula qayb qaadano ciidaasi farxad leh aan iraano من العايدين أن إيران من الفائزين وجدك شركة هدي أو أحا عملوا فكراي
ajantigiisa waxaa weeyaan min alcaa'idiin suldaanow min alfaa'iziin intaas ayaa barnaamijkaanyo iyo odayaasha hadli doonaana min alcaa'idiin min alfaa'iziin ciiddaasaan rabnaa inaan suldaanka noola wadaago annikan aan la wadaagno suldaankaynu ayaan halkaan idinku casuunay aad soo cajiibteen ilaahay khayr a idin siiyo sanadaan sannadeedana bashbash iyo barwaaqo anikoo fiyowna sidaana u kuluna ilaahay hanoo ka so marka shirka ujeeddadiisa akhyaarey waxay ku dhammaanaysaa min alcaa'idiin suldaan min alfaa'iziin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu oo maaragtay aan ka nimid dal dheer inaynu oo maaragtay la wadaagno dadkeenna Soomaaliya guud ahaan aynu la qaybsanno waxa ka jira aynu ogaano waxyaabaha maaragtay dhibaatooyinka jira aan ogaano wax walbana aan ogaano waxaan maaragtay safarkeenna u soo galnay haddii ilaahay idinkeeda leeyahay oo maaragtay reeraheenaan uga soo tagnay camalkeennaan uga soo tagnay inaan dadka ehelka la wadaagno inkastoo oo maaragtay dhibaatooyin ay iska jiraan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala keliya maaragtay uu xallin karo haddana waxa weeyaan wada tashi iyo maaragtay xaalad ka warqab iyo muddo la kala maqnaay in suldaanka uu ogaado oo maaragtay uu kuurgalo guud ahaan Soomaaliya inkastoo ay dhiban tahay haddana waxa weeyaan jaaliyadda uu suldaanka ku abtirsado guud ahaan koonfur galbeed Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Shabeellada Hoose iyo wixii la mid ah iyo meel walba Soomaaliya ay joogto inuu la wadaago ayaa safarkiisa uu ku saabsanay rabadaankii baa meesha nagu soo galay halkaan aan ku soonnay jasaakumullahu khayran dadkii wax ka soo dhaweeyay haydeen oo maaragtay airportka ku soo dhaweeyay intaan iyo in kale oo maqan intaan hadda waxay isu soo aruursateen inaad suldaanka tiraadaan waxa weeyaan min alcaa'idiin min alfaa'iziin waxa weeyaan waa arrin muhiim ah oo maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala waajibaad yani oo tiirarka islaamka ka mid ahay baa la soo gutay dadka islaamka inay maaragtay farxad ay ka wada qayb galaan ay farxad ka wada qayb galaan insha Allah waxa weeyaan cibaadadii ay ilaahay subxaanahu wa tacaala tahajjudkii iyo maartay salaadii iyo taraawiixdii ay soo guteen ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu maartay ka aqbalo waxa weeyaan ayaan ilaahay ka baryeynaa alxamdulillah ninka faa'iisga waxa weeye waa ninka dambigiisa la dhaafay oo maartay ilaahay kuwaasna ha nagu daro guud ahaan ummadda Soomaaliyeed guud ahaan islaamka inta dambigooda waxa weeyaan la dhaafay ilaahay maartay ha nagu daro kulligeenba marka munaasabada sida caaqilku u sheegay weeye cabdiqadar iimaan dhaqane TV-ga Home Cable magaalada Muqdisho